kalfadhigii 12aad ee golaha deegaanka ee magaalada Berbera ayaa saaka si rasmi ah uga furmay xafiiska duqa degmada Berbera. kalfadhigan ayaa ka soo qayb galeen badiba xildhibaanada golaha deegaanka waxaana halkaasi ugu horeyn ajantaha kalfadhigan uu ku saabsan yahay oo akhriyay xildhibaanadaasi golaha deegaanka ee fadhigan ka soo xaadiray xogayaha dawladda hoose Suhayb Maxamed Cali. mudane gudoomiye golaha waxa fadhiya 10 mudane oo adigu aanad ku jirin waxa maqan 2 mudane sidaas uu koromku ku buuxa ajandaha shirka 12aad kalfadhiga 12aad ee golaha mudanayaashu waxa ku saabsanaan doonaa ansixinta miisaaniyadda iyo qorshe hawleedka sanadka 2024 miisaaniyaddu waa qorshihii iyo hawlqabadkii mudanayaasha loo soo doortay in ay eegaan marka waxaan qaybin doonaa ajandaha iyo miisaaniyaddii oo aan saxeexnayn oo mudanayaashu hadday wax ka bedel iyo sideedaba ay u deynayaan iyagoo waajibaadkooda ay ka gudan doonaan iyo qorshe hawleedkii intaba markaa mudane gudoomiye sidaas uu koromkiina inoogu buuxaa waxaananu qaybin doonaa miisaaniyaddii iyo qorshe hawleedkii sanadka 2024 duqa degmada Berbera ahna gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isagu si qoto dheer u sharaxay kalfadhigan iyo ujeedadiisa waxaanu ka hadlay in miisaaniyadda ay si weyn uga hadli doonaan sanadka soo socda oo daraska 2024 waxaana kamid ah hadaladiisii sida tan mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Berbera maanta waxaan furan doonaa kalfadhigeennii 12aad fadhigiisii koowaad oo aynu kaga hadli doono miisaaniyadda 2024 mudanayaal sidaynu ka warqabnaba hoos u dhaca dhaqaale jira miisaaniyaddii sanadkii hore 2023 oo daraskeedu wuxuu ahaa 128 bilyan halka maanta oo daraska miisaaniyadda 2024 kuna uu yahay allahumma salli ala 106 bilyan farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan 22 bilyan ayay hoos u dhac ka yimid miisaaniyaddii boqolleyda markay u eegno boqolkiiba 26% ayay hoos u dhac ku timi miisaaniyadda dowladda hoose degmada Berbera iyadoo nidaamka sharciga maaliyaddu ina farayo in sanad walba la kordhiyo miisaaniyadda 11% ugu yaraan hoos u dhacaas miisaaniyaddu wuxuu u badan yahay dakhliga naga soo gala kastamka oo kii cashuuraha bariga ee aanu qaadano ee degmada ka urursano ayaa in badan markiisii hore sare uga soo kacay oon ku dadaalnay maadaama hoos u dhac jiro sidaa awgeed miisaaniyaddan oo daraskeeda boqolkiiba 9 ayaanu kordhinay marka boqolkiiba 26 hoos u dhacaasi jiro boqolkiiba 9 kaasna wuxuu ka kordhay waanu ka kordhinay lacagta maamul daadejinta mushaharka macallimiinta wasaaradda waxbarashada ay nagu soo wareejisay sanadkan taasoo dakhligeena ka muuqan doonto in kamahaaniga noo soo geli doonta deeqaana nagu soo gelisa miisaaniyaddeena waa inay ka muuqataa inay ku jirto sarukac bay keentay iyo mashruucan la yidhahdo TBLG-ga oo 2 sano u dambeeyay baa inaan waxba ka arag haddana saadaashiisa in sidii ugu jirtay in mar kale loo geliyo intaasoo la sugeeyo ayaa isku noqonaysa boqolkiiba 9% sare u kicinaysa taasoo ka dhigaysa in boqolkiiba 6 bilyan ay noqoto miisaaniyadda 2024 haddii aanay 9kaasi aanay jirinna waxay noqon lahayd hoos u dhicaynu 3 bilyan ayaan hoos u dhici lahayn miisaaniyaddana waqtigan oo darasana waxay noqon lahayd 95
bilyan ayay noqon lahayd anigoo aada ugu mahadnaqayaan mudanayaasha golaha deegaanka oo har iyo habeen u heelan sidii magaaladan ay horumar u gaari lahayd sidii magaaladan ay uga horeyn lahayd magaalooyinka kale ama uga tilmaan lahayd maxaan ku rahdaa geeska iyo dowladahan jaarka agteeda ah una hiigsan lahayd horumarka dadyoga hore maray oon aada ugu mahadnaqayo waxaan soo jeedinayaa iyadoo ka soo shaqeeyeen guddida dhaqaalaha golaha deegaanku ay isku howleen kana soo shaqeeyeen soona diyaariyeen qeyb ka ahaayeen diyaarinta mudanayaasha goluhuna ay qeyb ka ahaayeen la kulankii bulshada iyo baahiyaha mustaqbal wixii loo qaban doono wixii aynu maanta soo siiyeen waxaynu gudageli doonaa inaynu falanqeyno وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي Bulsha TV مقالة بربراء.